soo dhawaada saaxiibayaal. Hadda degin waan hubaa in barnaamijkani uu ku anfacayo. Waqtigu waa waxa sida aadka ah aynu ugu baahannahay, haddana aanu isticmaalno sida ugu xun. Waa mid aan ugu talagalay baraaruga iyo dhiirigelinta dhalinyarada daayarta. Waxaan rabaa inaan ku tuso in dhalinyaro badan iyo caafimaadkoodii ku waayeen si ay lacag u helaan, halka dadka qaarkoodna ayba lacagtooda ku waayaan si ay caafimaad u helaan. Ma ogtahay khasaaro kasta oo ku gaara waa lagaa caawin karaa waanaad ka soo kaban kartaa, laakiin haddii uu waqti kaa khasaaro ama uu kaa tago, cid kaa caawinaysa male. Waqtigaaga hanti waad ka samaysan kartaa, laakiin hantidaada ama lacagtaada kuma iibsan kartid waqti. Waqtigu saddex kastan ayuu leeyahay: waa shalay, maanta iyo berrito. Waqtigu waa macallin wax kasta ku bara. Maalintii timaadaba dadkeeda ayay leedahay. Waxa ugu waano xeel dheer waa waqtiga. Waqtigu waa saaxiib haddana dagaal idinka dhexeeyo. Waqtiga iyo cimiladu way isrogrogaan. Waqtigu kuma rukuuco qofka hortiisa, laakiin qofka ayaa ku rukuuca waqtiga hortiisa. Qofka hodanka ahi waxa uu dilaa waqtiga, waqtiguna waxa uu dilaa qofka faqiirka ah. Shalay ha ku qaadan dushaada, waayo shalay way dhimatay, berritana way nooshahay. Maalmuhu waa sida baalasha buugga ee ku qora waxqabadkiina kan ugu wanaagsan. Waqtigu waxa uu xalliyaa dhibaato kasta, waayo waxa uu ka dhigaa wax duug ah. Waqtigu waxa uu daweeyaa khilaafyada iyo xanuunada. Ilbiriqsi kasta oo noloshaada ka mid ah waa madax aan soo noqonayn. Qofkii waqtigu ka farxiyo, ogsoonow waqti kale ayaa ka murugeeya. Taako dahab ah ma goyn karto taako waqti ah. Waqtigu waa soofe wax dhammeeya isagoo aan sanqadhayn. Waqtigu waa mashiin burburiya dhalinyaranimada. Qorraxdu waa istaagtaa, laakiin waqtigu maya. Waqti kaa tegay tiigsimaad ma leh. Maanta waa waayo aragga shalay. Waxa jooga wixii tegay bay afayeen u yihiin. Waagaag aan ku xasuusiyo, haddii aad nagu cusub tahay channelka Daymacad Media, subscribe saar si aad uga mid noqoto bulshada ku xidhan channelka Daymacad Media. Mahadsanid. Shalay kama aanay saacada badnayn maanta. Subaxu ma oga waxa galabta dhici doona. Marka aad tagtadaada taqaan, ayaa timaadadaada ka talin kartaa. Ururada bulshadu badanaa waxa ay ilaaliyaan daqiiqadaha, waxa ayna lumiyaan saacadaha. Sida guurka iyo lacagta ayuu waqtiguna u kala kaxeeyaa saaxiibada isjecel. Dad badan waxa ay waqtigeenna u isticmaalaan sida ay siyaasiyiintu u isticmaalaan lacagteenna. Haddii aad moodayso in waqtigu daweeyo wax kaste, yara fadhiiso xafiisyada dhaqaatiirta. Dilidda waqtigu maaha gacan ku dhiiglanimo ee waa ismiidaamin. Waqtigu waa waxa sida aadka ah aynu ugu baahannahay, haddana aanu isticmaalno sida ugu xun. Haddii aad doonaysid inaad waqtigaaga dishid, maad falowgeeda geshid sidii aad u dhiman lahayd. Saacadaha iyo waqtiguba way sii baaba'aan. Waqtigu waa sida lacagta, waxaad isticmaali kartaa hal mar. Dadka markaste sida khaldan u isticmaala waqtigooda waa kuwa ka cawda gaabnida waqtiga. Tashiilidda waqtigu waa wax wanaagsan, laakiin lama kaydsan karo si loo isticmaalo hadhow. Waqtiga waan lumin karnaa, laakiin dib looma isticmaali karo. Qofka waqtigiisa dila ma baran qiimihiisa. Habeenka iyo maalintuba waa laba marti oo mudan. Waqtigaaga la tartan kuu tiri maayo. Haddii uu waqtigu kaa xumaado, xiin waxba kuma taro. Saban tegay, mid weli soo socda, iyo saaka waxa jooga, saddexdaaba xaal adduun lagu sifeeyaa. Soo noqod ma jiro. Shalay wixii saatifoo tegay, wixii saa dambeetiyo berrina waa su'aal taagane. Waxa ay taladu kuu suuban tahay subaxaad joogtaaye. Dad badan waxay caafimaadkooda ku waayaan si ay u helaan lacag, halka dad kalena ay lacagtooda ku waayaan si ay u helaan caafimaad. Aad baad u mahadsantihiin akhyaarta qaaliga. Ku xidhnow channelka Daymacad Media. Anigu waxaan ahay Jabarti Yaxye. Kulanti dambe wanaagsan.